السلام عليكم مقاطعي وصلاة موسم خمور سوقو جمالك صلاة صومال تكنولوجي شمالك حديات كوسبتها هاي فضلا سبسكرايب سار حديات كنولوجي وقتنا welcome always وحينا صعدك رصيدي نيسي language حلقة سا هذا سوق هذا حلقة سا branch statement أو FL statement if statement simple if statement switch statement وهكذا قلنا هذا لازم كان نقول شابسي هاي loop statement so today topic نقول شابسي هاي loop statement الحين معناها loop يمشي وقت هاي هاي C programming مدة كلا loop يو branch statement aan soo qaadanay labadaba loo isticmaalo kaliya C language ee waxa loo isticmaalaa program kasto hadii aan labadan taqaano waxyaabo badan aad ka fahmay because program kasto dhamaantood way isticmaalaan waayo waa la fadhamaanta programka macnaha loop waxa loop statement loops as to execute a statement or group of statement multiple times or execution again and again means repeatedly معناه loop معناه هو statement تيجينا كان دونينو إن an execute جرينو أما an print جرينو أحكي بدن 1 and 2 وأحكي بدن 1 معناته إن statement تي an ديجنو بسول بعيننا وقتي نقعدنا marka loop statement wuxuu fududeynaa statementigaas inta maanta oo dhigi lahaday hal xabaa dhigane tobanka kale ama labada kale ama saddexda kale loop ay isticmaalaan loopkaas asigi kuugu soo celinaa statementigaaga lagu soo celinaa again and again so macnaha loop kaas hadii aan fahmeyna dhimaala programka si fiican u sii fahmi doontaa types of looping types of loop ay sidan wuxuu ku kooban saddex daan وحوان number 1 وحوا for loop second وحوا while loop 3 وحوا do while loop so عشان كان تودي كوسابسي هاي number 1 هقعدنا ما محي for loop وكميدي هاي صدق ده types for loop وكميدي هاي أصيغا وحوا استعمالها كدوني يصير إنه statement هذا أو execution كوسميه so one more time so وكوفوينا syntax أصحابته يسوي دي ساينتكس معناه محيته ساينتكس محل الاستفادة ساينتكس وحوا أيضا بروجرام كغيوي نكتاكن تاي وايو انستريشن كي أو أتفهم هذا وحين ساينتكس ده فهمته معناه ده حكي دقيقة تي بروجرام كقريب كم يدور فهمته هدي ساينتكس كات فهم سنتين so ساينتكس أو فور اللي بخلونا وفاست وحلا ده فور إنشاء واحد فوقنا parentheses أما سبيشان فوقنا initialization semicolon على هاي ما قصدي واحد كل حدينا test condition semicolon على modify معناه modify محوا modify وحلول جدا increment and decrement واحد كمديهن operators كأو بحيو C language program بس كمديهن لكن C language نو كمديهن so increment معناه وحنا قنا بلاس ومعناه وتاجن one halkii markuu execute sameeyna halkii markuu execution uu sameeyo plus 1 decrement aydan waa naaqusin waxa noqonay bedelka cagsigeed minus noqonay oo taagan aydan 1 naga oo yani 1 uu ka goyna minus uu isticmaalaan kan waa increment waa u siyaadina plus 1 uu leeyahay so waxa isticmaali kartaa plus 1 ama soo xadii kartaa plus labada calaamad oo plus ka minus aan leedahay hadii kale minus 1 ساجعشة so وهل ودي أقول غانينا قابل عن الله استعمال so modify وهكذا decrement increment الله استعمال then نقص محاكو حيو تغيس كان بريك اليان أو من وافق من وحكي كلا نحن نحن ذا نحكو ديه board of the loop يعني إذا حوا أنت يعني بريك كان أنتوا بحيسوا أنتوا loop وسامينا واحد دبده كحيده بس يعني دبده وراه دخل أما سبناك كتيجو أما سكن كذا بيه ما سامينا for loop لغاية كان كوخيو كان كلا أول ضمبير لا أنت أول بحيسو أيو loop
استعماله وحي كبحصنا بنان كان استعماليس وحي فوتان وحي كشيشانه مو استعماليس اوكي انا فهمتين فيلا سو waxaan ugu daygaynaa practicalkeena code-keena so waxaan isticmaalnaa code blocks because code blocks aad u fudud yahay ideyada kale oo la isticmaalo so intuu noo soo kacayo soo nasbalaadka ku dhifanaynaa main siya ku dhifanaynaa then code code cusub sameynayna waxa sameynayna shift hash include stdio.h so macnaha waa maxay include stdio.h include hash include iyadoo waa preprocessor stdio.h macnaheedu waxa waa stdio wuxuu taagantahay standard I own who tagent input output H tan who tagent header file so stbi.h anaga ma aan samaysan already wuu samaysnay library function ku kamid yahay anaga waxa samaysan ma ahan mid kale programka kama kamid ahan balse programkeena functions kamid ayaa u baahan for example scanf printf iyo kuwa kale badan kuwaas ayaa loo isticmaalaa sida input iyo output markii aan doonayno waxaabahaas ugu baahan yihiin balse asiga ma noo baahno so programkeena kama mid ahan balse programkeena wax ka mid ah ayaa u baahan asiga ina kala fahantaan aan doona so next waxaan leenahay main marka la hadlo bil afur bil akhir leedahay way kala soo qaadanay for example waxaan sameynaynaa example waxaan leenahay int waa integer ayada decimal value wixii aanan inti wadanin so inti for example waxaan iska leenahay int n equal to xinool mid aan leenahay for example 20 or 10 for example 10 iska dheh then waxaan leenahay for soo qaadanayna for loop waxaan ka dafinaynaa initialization soo xasuus hadii soo xasuusiyo waa kana form ka dhad waxa la initialization negative test condition then waxa ku tabeey modify so macnaha initialization ka waan soo qaadanay initialization waxa waa for example hadda waxaan sameeyay meeshan ntn hadii aad dhahdo ntn hadii aad ku ekayso macnaheedu waxa waa declaration n ayaa kaliya declaration hadii laakiin n of value soo dhahdo n equal to 10 macnaheedu waxa waa initialization انت data type n waa variable 10 waa value gan waxa iskale variable kan soo waxa noqonay markii like waxa la isku dhahay initialization laakiin hadii n kaliya dhacdo taas declaration ay noqonay inaan kala fahantaan isku daa soo waxaan leenahay inti aan qaadanayna inti for example aan leenahay equal to xinool mid tahay 0 inti ay wax nool mid aan leenahay semicolon then waxaan leenahay I soo qaadanayna I is less than or equal n n semicolon increment way noqonaa mise decrement way noqonaa any time oo isticmaasho meeshaan okay hadda increment way noqonaa laakiin adigu soo celinayso I plus okay maxaa isticmaalay fogaan dhahay foog markaa dhahay bishaana furtay bishana ugu dambeyn soo xiray okay bish markaa furtay waxaa dhahay initialization waxaa leedahay first variable ka isticmaalayso waa in initialization u sameysaa midda kale muhiim maahan in yani foog dhexdiisa aad ku diglarayso waxa dhigi kartaa ayaa ka bilaabi kartaa oo meeshana ka soo qaadi kartaa yani waxa sameyn karnaa meeshaan koma dhigi kartaa ay meeshaas dhigi kartaa hadhow waxa dhigi kartaa ay wixii noola mid tahay intaas okay sana ku bilaabayna
so waxaan int I equal to equalment as 0 okay taas initialization kii waa next conditionka programka oo just ku sameeynayo conditionka waa kana condition I equal to I less than or equal to n so n waxay noqon mid n waxay noqon mid n qiimaha haysanaa waa 10 okay I maxaa haysanaa I waxa haysanaa wax baqayna ma haysano oo siiran haysanaa so I less than or equal to n okay taas macquul noqonay then I plus aan leenahay because waxaan doonaynaa ilaa iyo 10 laga geeyna inuu conditionka noo fiirsho I equal I is less than or equal to n level I first qiimuhu soo qaadanaa waxa waa 0 waa ka yartay 10 okay plus uu leeyahay plus markii dhaho halkaas plus wuxuu dhigmataa plus 1 okay I waxaan mid noqonaynaa 1 then next condition oo soo laabana I maxaan haysanaa I wana haysanaa because first 0 yahay condition kii yani plus lagu sameeyay 1 in noqoto hadda 1 aan haysanaa 1 hadana uu ka hooseeyay 1 kala hadana yani plus aan leeyahay 2 in noqoto 2 sidoo kale hadana qaabkaas ilaa 9 wali way ka hooseeyay maana 10 ha 9 way ka hooseeyay then 10 way maana 10 way ka hooseeyay okay 11 kama hooseeyso then stop galayna programkeena meeshaas uu koodiyay okay hasameynayna bracket ka fulinayna waxaan leenahay for example printf ayadoo waxa loo isticmaalaa kii aad isticmaalaysid output-ka loo isticmaalaa so waxaan leenahay I'm using for for example semicolon okay programkeena saas oo noogu egyahay execute ku sameeynaa intaan execute ana ku sameeyno waxaan leedahay build ama sa combine waa checkreynayna wax qalad inuu leeyahay in kale okay wax qalad ma lahan dan waxaan leenahay execute ku sameeyo waa kana I'm using for loop I'm using multiple times so ayadoo again soo celina waxaan sameeynaa new line meeshan gashanayna si page kastaba statement kasta oo new line ugu bilowdo new line aan leedahay okay semicolon okay kana hodai I'm using for loop I'm using okay again ku soo celish okay sideen ku ogaanaa yani inuu ii daabacay 10 okay waxaan ku ogaanaa tusaale kale waxaan leenahay meeshaan waxaan gashanaynaa percentage d aan leenahay because int waa decimal so d aan qaadanaynaa new line aan leenahay okay comma ayaan soo qaadanaynaa okay hadda ayuu noo sheegaa inta aan daabacay kooyit bana lagu baahan yahay daabac because wuxuu ka bilaabay 0 up to 10 waa 11 okay oh 0 ka bilaabay 10 oo geey okay waxa noqonaya 11 isku noqonaya sabab kale meesha waa bedel kartaa in qiimaheedu waxaan ka dhigi karnaa 25 aan leenahay then akana 0 to 25 I'm using for loop 6 to 25 so معناها إذا فهمتين أو loop لو استعماله loop معناها لو استعماله هو statement marka doonaysid inaa execution ku sameeyso one more time again and again then maanta dhan inaan dhaho yani printf I'm using for loop hadan next printf I'm using for loop in ku soo celiyo waqtiga qaadane so waxaan isticmaalaa loop ani aan u baahanahay yani ani time aan u baahanahay yani inaan number meeshaan ka dhigeen 25 10 inta u baahantahay then statement-iga uu soo noqonaa okay ina fahanteen oo maleynaa macnaha loo jeedo for loop okay next lesson wuxuu noo noqonaa while loop okay thank you